سنة كبعدي أنا وحنا يفتن حسين سياد وحنا قبر عن ذلك كبحل هو يا جوكتي وحبرنا حقوق وقاه وحبرنا وانكسر شقي يعني أنا هو يا وحبرتي يرانتي بكون waxaan ku soo koray dadka qaxootiga ku soo koray ahaa xiriyaha dhadhaab dugsi sare oo soo baxay xamraan ka dhigtay jaamacadda sharciyada 2015 aan ka baxay marka waxaan ilaahay idinkiis waxaan ogahay in aan wax badan oo dayacana aan ogahay inkastoo nala qabo soo nala qabo waxaan ku nahay anaga gaar ma ahan Soomaaliya oo dhan waxay nala qabto waaye qaasatan anaga gabdhaha haddaan wax iska warqabnaa sababtoo ah hooyada dhibaato badan aan ku dhaceyso kan dhimanaya iyadoo ka dhimanaya kan xiran iyadoo ka xiran hooyo waxna way dhashay waa dhinac wiilkeedii ka gablamaysa dhinacna asay ka qaadaysaa ninkeedii ka dhimanaya marka dhibaatada oo dhan Soomaaliya oo dhan inkastee nala qabto aniga waxaan rabaa haddii ilaahay idmo oon xilkan ku guulaysto oo adinka igu garabsiisaan oo igu taageertaan kursigaan inkastoo dad badan loo wada tartamaayo haddana aniga meligii keligii aan helo waa ku qanacsanaa qofkii helo in aan kula shaqeeyo oo beesha maqlisama ka mid ah oo helo in aan ku soo dhaweeyo aan kula shaqeeyo oo sida aniga aan ugu qaban lahaa asaga aan ugu garab istaagay sidaas la mid ah marka waxaan leeyahay aniga wax badan aan ogahay deegaanadeena xor ma ahan waa la heystaa hadda koor barnaamij aan ka hadlayn uu ku jiray saasoo kale bal dadka waaweyn iyo wixii ka soo daalay qof iyo qacda waaba laakiin generationka cusub in la badbaadiyo maxaa la dhahaa ii sheeg aan ku badbaadino buug iyo qalin waa ognaa ilmahana way dayacan yihiin xabsiyaday ka buuxaan meelo kale wada taagan yihiin in marka dhammaanteen waxaan ugu gudbi karnaa inaan maxaa la dhahaa gacmaha isqabsano oo yeelano marjac loo noqdo iyo meel dadka inta wax fahmaysa ee isugu timaado si dadkeena kale aan wax ugu qabano ama aan xil helo ama aan waayo ama aan xilka helo ama aan waayo taas ma ku xirna xilka waa codsanayaa maanta in aan wax samaysano oo aan isku imaan karno oo aan waxda qaybsan karno taas ma ahan mid xil ku xiran marka anoo uga faa'iideysanayo jaaniskan marka insha Allah kursigan baarlamaanka 11aad hop 026 waan u soo istaagay haddii ilaahay ii qadarana waan helayaa haddii aan helin kulli qof kale oo maqlisama helaayo waan ku garab taaganahay intaas aan hadalkayga ku soo xirayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh